أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دذلكي لا يمذي الله يوي قرقان وعي قلمتا الريان وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى halkana waxaynu ku eegi doonaa macalinka dugsiga iyo arrimaha la xiriira si loo xaqiijiyo shuruudii laga fahmayay xadiidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahayd in macalinku yahay mid isagu quraanka bartay kadibna sii baray dadka kale sidoo kalena xadiidkii ina barayay sida alle u jecel yahay inaynu u qabanno markii midkeen shaqo qabanayo ee ahayd in shaqadaas la sugo haddaba si loo gaaro shuruudahaas iyo kuwo kale oo badan oo diinteenna ka buuxa ayaa waxaa lagama maarmaan ah in shaqo kasta loo fuliyo sida ugu sarraysa ee bani aadamku gaareen oo laga faa'iidaysto qaababka lagu hormariyey ee hawshaas loo qabto macalinka iyo shaqadiisa iyo sidii uu uga soo bixi lahaa shuruudahaas diiniga ahba waxaynu ka eegaynaa dhowr dhinac waa dhanka koowaad ee hor iyo horaanba qaadashada ama qorashada macalinka si loo helo macallin u qalma booska bannaan waa in la raaco qodobadan soo socda maamulka dugsigu waa inay qoraan sifooyinka qofka ay u baahan yihiin iyo xirfadaha looga baahan yahay waa in qoraalkaas lagu faafiyaa saxaafadda dugsiga iyo deegaanka ku xeeran sida masaajidda iyo wixii la mida waa in codsiyada loo qabto si cadaalad ah qofkana loo cadeeyo ilaa waqtiga uu jawaab helayo ama sugayo yuuba jawaab heline waa in dhowrkii qof ee codsigooda laga fahmo in ay ugu dhow yihiin sifooyinka la rabay loo qabto maalin lala yeesho muqaabaladii qofka tooska ah ahayd ee lagu kala reebi lahaa qofkii si cadaalad ah ugu guulaysta booskaas waa in ay maamulku siiyaan nuskho qoraal ah oo ay ku cad yihiin dhammaan qawaaniinta dugsiga iyo waxa mas'uuliyadihiisu yihiin waa in loo cadeeyo in aqbalaadiisa booskani ka dhigan tahay inuu aqbalay dhammaan qawaaniinta dugsiga ama laga saxiixo foom arrintaas caddaynaya dhanka labaad ee aynu ka eegaynaa waa dhinaca xagga qaanuunka waa marka hore ee macallinku wuxuu toos u hoos tagaa oo ka amar qaata maamulaha dugsiga qaabka macallinku ku shaqeeya waa inuu laba midkood ahaada waa inuu shaqaale yahay ama waa inuu mutatawic ama iskaa wax u qabso yahay mid kastana waa in loo raaco qaab waafaqsan kan qawaaniinta dalka dugsigu ku yaalo oo macalinka siinaysa xuquuq iyo waajibaadba waxaa in badan dhacda khalad haddii nidaam dowladeedku ku dabagalo dugsigaas iyo masaajidka uu ka tirsan yahayba u keeni karta in albaabada la isugu dhufto tusaale ahaan dhaqaale kasta oo raadraac leh waa in la caddayn karaa meesha uu ku baxay lacagta dugsiga ee waalidka laga qaadaa waxay leedahay rasiidyo iyo diiwaangelin waana in la helaa meesha ay dhammaanteed ku baxday arrimaha kale ee qaanuuniga ah waxaa ka mida macalinka waxaa qabta oo ay korkiisa tahay inuu hirgeliyo tacliimaadkii loogala heshiiyey xagga muqararka iyo yoolalkiisa maamulidda fasalka ilaalinta akhlaaqda ardayga iyo dhammaan wixii kale ee lagula heshiiyey waxaa kaloo ka mid ah macalinku waa inuu diyaar u yahay inuu maro hubinta dembiyada ee dalka la joogo maxaa yeelay looma ogola in caruur lagu aamino qof aan la hubinin taariikhdiisa iyo inuu dembiyo la xiriira caruurta ama kuwo kaleba galay macalinku waa inuu xil iska saaro ku fulinta fasalkiisa qawaaniinta dugsiga tusaale ahaan waa inuu ugala xisaabtamo ardayda imaanshahooda waxbarashadooda iyo akhlaaqdooda si waafaqsan qawaaniinta dugsiga u degan waa in ardaydu isugu mid noqdaan macalinka oo uu
uu isku si ula dhaqmaa. waa inuu og yahay wixii mukhaalafo qaanuuneed ah ee uu la yimaado sida xuquuqda carruurta oo uu ku xadgudbo iyo wixii la mid ah uu isagu la gooni yahay oo uusan dugsigu shuqul ku lahayn ee ay dowladda laga hoos shaqaynaya kala xisaabtamayso isaga keligiis. wixii mukhaalafo shaqeed ama mas-uuliyaadkiisa lagala heshiiyey ah ee uu galo iyagana waa in uu diyaar u yahay in lagala xisaabtamo una aqbalo wixii ciqaab ah ee uu ku mutaysto. dhinaca saddexaad ee aynu ka eegayno arrimaha macallinku waa dhinaca khibradda macallinka iyo heerkiisa waxbarasho. macallinku waa inuu aqoon u leeyahay maadada uu dhigayo oo lagu imtixaamaa inta aan loo dhiibin. waxbarasho ahaan waa inuu gaaray heer aad uga sarreeya kan uu ka dhigayo maadadaas. waa inuu aqoon ku filan u leeyahay maadooyinka kale ee xiriirka la leh midda uu dhigayo. waa inuu waxbarashada caadiga ah ama maadiga ah ugu yaraan ka gaaray oo dhammaystay dugsiga sare oo uu yahay qof meel waxbarasho iyo nidaamkeeda wax ka garanaya. waa inuu si fiican u fahansan yahay oo u yaqaan aasaasiyaadka qur'aanka iyo farbarka. waa inuu si fiican u yaqaanaa axkaamta tajwiidka qur'aankana uu si sax ah u akhriyi karaa. waa inuu u xifdisan yahay ugu yaraan qayb qur'aanka ka mid ah si khalad la'aan ah una yaqaanaa inta kale haddiiba uu qur'aan dhigayo. luqad ahaan waa inuu si sax ah oo degan ugula hadli karaa ardayga, waalidka ama maamulkaba luqadaha ay fahmayaan sida afka hooyo iyo kan dalka la joogaba. waxaa aad u fiican macallinku inuu soo qaatay oo soo maray tababar haba ku sinaato waxa uu dhigaye. dhanka afraadii aynu ka eegi doonaa waa dhanka shaqo ahaanta. shaqo ahaan waa inuu macallinku dusha u ritaa mas-uuliyadda horu socodka fasalka guud ahaan iyo tan arday kasta gaar ahaan. waa inuu xil iska saaro sidii uu hanan lahaa qalbiga ardayga iyo waalidkaba oo uu u abuuri lahaa bay-ad waxbarasho oo raalli laga noqon karo. waana in ardaygu dareemi karaa ixtiraamka uu macallinkiisu u hayo arday ahaan. waa inuu u soo diyaariyo una gudbiyo casharka si u faa'iidaynaysa ardayda fasalka oo dhan isagoo oo maskaxda ku haya kala duwanaanta qaababka wax loo fahmo ee aynu horay ugu soo sharaxnay casharadan qayb ka mid ah. casharkiisuna waa inuu yahay mid dhiirigelinaya ardayda oo ay xiiseeyaan. waa inuu casharkiisu leeyahay khidado lagu caawiyo ardayda ku liidata maadadiisa. waa inuu aqbalaa kuna farxaa su'aalo in ay weydiin karaan ardaydiisu uusanna gayaysiin in ardaygu kala boqo su'aasha. waa inuu luqadaha la soo sheegay ku dhigi karaa aasaasiyaadka tarbiyada islaamka. waa inuu xil iska saaro sidii si joogto ah uu u qiimayn lahaa horu socodka waxbarasheed ee ardayda iyo diiwaangelinta horu socodkoodaas. waa inuu ka dheeraadaa inuu ardayda dhex dhigo tartan keeni karaa in ardaygu khiyaano sameeyo, karhado arday kale. waxa la helayo ee abaalmarinta ah ka dhiga in ay ka qiimo badan yihiin wixii la baranayay ee qur'aanka ama waxa la midka ah ahaa. dareen xun iyo niyad jabna ku abuuri karaa ardayda maadada ku liidata. waa inuu wakhtigii lagula heshiiyey ku yimaadaa kuna joogaa oo ku dhammaystaa fasalka. waa inuu si joogto ah isagu isaga qiimeeyo dhinacyada qaababka waxbariddiisa iyo xirfadihiisa oo horumarin iyo isbeddel si joogto ah isugu sameeya. waa inuu waxbarashada ardayga iyo wixii ay dowr ka qaadan karaanba si joogto ah uga wargeliyaa maamulka iyo waalidkaba. waa inuu awood u leeyahay inuu la shaqeeyo xubnaha kale ee dugsiga. waa inuu yahay mid la heli karo markii hawl wakhtigiisii ka baxsan looga baahdo. waa inuu ka qayb qaataa howlaha kale ee dugsiga sida qabashada xafladaha iyo wixii la mida. haddana waxaynu ka eegi doonaa dhanka tarbiyada. ku tarbiyaynta carruurta tarbiyada wanaagsan ee islaamku waxaa la oran karaa waa qaybta ugu muhiimsan ee macallinka dugsiga. macallinku waa inuu leeyahay khiddo tarbiyadeed oo la socota xiisad kasta waxbarashadeeda isagoo xasuusinaya ardayda inta xiisadda lagu jiro. xiisadaha kale ee iyada kasii dambeeyana lagu naqtiimo. macallinku waa inuu si joogto ah ugu shixnado ardayda mas-uuliyadahooda islaamiga ah oo u xasuusiyo mar kasta oo uu fursad u helo.
fursaddu waaba iska joogto oo tusaale ahaan markii uu rabo inuu xusuusiyo xaqa qofka kale ku leeyahay ardayga iyo wanaagga iscafinta iyo wixii la mid ah tusaale ahaan waxaa fursad u ah markii labo isqabato markii su'aal si guud loo weydiiyo fasalka oo ay dhammaan rabaan inay ka wada jawaabaan markii wax la qaybinayo markii fasalka la galayo iyo marka laga baxayo iyo wixii la mid ah oo dhammaantood waa fursado uu macallinku si sahlan ugu beeri karo ardayda dareennadaas islaamiga ah macallinku waa inuu isagu tusaale lagu daydo xagga tarbiyada u noqdaa ardayda tusaale ahaan ballamaha uu qaaday waa inuu uga soo baxaa sidii uu u qaaday kii dembi isaga ka gala waa inuu cafiyi karaa iyo wixii la mida macallinku waa inuu dareensiiyaa ardayga inuusan ka duwanayn ardayda kale xataa haddii uu ka edab daran yahay macnuhu ma aha inaan lagala xisaabtamaynin edabdarradiisaas macallinku waa inuusan fasalka oo dhan ciqaab aysan mudan ku ciqaabin inta qaar ayaa inay arday ama laba ku xanaaqeen ardayda oo dhan ciqaab ku wada ridaya macallinku waa inuu ardayda tusaa in ay dhammaantood u siman yihiin oo weliba dareensiiyaa qiimaha cadaaladda waa inuusan macallinku u dooran isla hal arday inuu isla ardaygaasi noqdo kan mar kasta macallinka caawiya macallinku waa inuu mar kasta naxariis iyo kalgacaltooyo u muujiyaa ardaydiisa macallinku waa inuu arday kasta kula xisaabtamaa yool awooddiisa ku xadidan oo uu gaari karo maxaa yeelay markuu qofku gaaro yoolkaas waxay u noqonaysaa dhiirigelin himmadiisa kor u qaada oo inuu wax qabtay ayuu dareemaya macallinku waa inuu ardayga dareensiiyaa inuu yoolkaas gaaray isagoo adeegsanaya erayo dhiirigelin leh ama ishaarooyin ardaygu fahmayo weliba waxaa ka sii fiican in qoraalna loogu muujiyo oo loogu qoro diiwaankiisa horu socodka buugga ardayga ee alrayaan iyo wixii la mida akhlaaqda macallinku waa inaysan noqon mid ardaygu la yaabo oo ka anfariiro waa inuu ogaadaa in ay ardayda qaarkood ama kulligoodba fahmi karaan waxyaalaha aan ku habboonayn macallinku waa inuu dareensiiyaa ardayda in ay caadi tahay in ay ula imaan karaan dhibta haysata ama waxa ay dareemayaanba macallinku waa inuu ogaado inuu yahay tiir xoog leh oo ka mid ah dhismaha mustaqbalka ardayga iyo guulaysigiisa lagana rabo inuu dowr dhisideed ka qaato siduu u noqon lahaa arday leh dareen higsiyeed sarreeya oo dareensan in waxbarashadu ay qayb muhiima u tahay noloshiisa aakhiro iyo tan adduunba macallinku waa inuu mar kasta tusaale ugu noqdaa ardayda xagga akhlaaqda ilaalinta waqtiga iyo qawaaniinta dugsiga haddana bal waxaynu ka eegi doonaa dhanka feejignaanta laga doonayo macallinku waa inuu fahansan yahay mabaadi'da islaamka ee dhanka tarbiyada khaladka laga fahansan yahay islaamka oo wixii uu sameeyo isagu loo saarin doono islaamka qawaaniinta ka shaqaysa dalka uu ka shaqaynayo iyo taxadiyaadka casriga uu joogo intaba tusaale ahaan ardayad Soomaaliyeed oo ka cabanaysay macallinkeeda ayaa warqad cabasho ah anigaan dhowr sano ka hor ii soo qoratay ama kaag iyo afkalataa kadib rabbi waa noo fududeeyey inaan arrintii xallino oo ardaygii waalidkii iyo macallinkiiba ay ka qancaan waxaase khasab igu noqotay inaan qaabka aad arki doontaan cashar uga dhigo si looga faa'iidaysto aniga oo ka fiiriyey dhanka waxaa dhici lahaa haddii ardayadaasi ay warqadaas hay-ad dawli ah gaarsiin lahayd oo aysan aniga kalsooni igu qabi lahayn shaki ma leh in dhib weyni gaari lahaa macallinkaas dugsiga iyo masjidkaba wax ay hadhow ku dambaysaba hadda oo laga joogo muddo 6 sano ku dhow waxaan hubaa in weli casharkan loo baahan yahay fadlan macallin haki videogan si aad qodob kasta u akhriso una fahantid qaybta dambe ee qoraalkan aan idinku duwi doonaa waa su'aalo aan markaas ugu talogalay in macallinkii fahanka khatartu feer maray ay tuse u noqoto oo uu weliba isku khasbo fahankeeda ilaa waa inuu wax ka qoraaye macallin kasta waa ku tirtirsiin lahaa inuu su'aalahaas buuxo ka jawaabo isku dayo inuu bal qoraalkaa sameeyo haddana waxaan idinku duwayaa qoraalkii أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو
أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دا الكي لا يمذي الله يو يقرقان آمين آمين إله يو يقرقان آمين آمين دا الكي لا يمذي الله يو يقرقان آمين آمين إله يو يقرقان ugu dambayntii iyo gabagabadii waxaan rajaynayaa in muqtadafaadkaasi ku filan yihiin baraarujin ahaan ilaa sifooyinka macalinka naajixa ah buug ayaa laga qoraa oo wax video yar lagu soo koobi karo ma ahane waxaanse ku khatimi lahaa oraaho aan qoraal ka soo dheegtay macallin aqoonta rabbi ku yeelay waa ammaano carruurta aad wax u dhigaysaa waa ammaano wakhtiga aad heshiiska ku gashayna waa ammaano waxaan oran lahaa ammaano aan la iskala xisaabtami doonin ma jirtee si fiican ha loo diyaar garoobo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دا الكي لا يمذي الله يو يقرقان وعي قلنتا الريان وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى